صفاتكاسنا عالم كمان تويكزولين فالنبي عليه الصلاة والسلام هي جميع الأنبياء والرسل كما يددالي سيدي قلق اللوغة فائدة ساعة سيدي بني آدم كواي هورو مركن برها وهلانة بل نبيد وحي كددالين سيدي بو بني آدم كو إصلاحا هلكونا كي إصلاحا يا بني آدم كوالكو كي إصلاحا وموكفة سادة وقلبك نبيدو ددالكو وحي كبهيين قلبك هي إصلاحين يا قلبك معوكو إصلاحا يا هدي قلبك فريسة معرفة إلهي مركاسو قلبك إصلاحا يا قلبك مركي قشو إلهي عبسديسو إلهي جل وعلا ماركتاني وهيبديسو إلهي محبديسو إلهي رجينتيسو قلبك مركي قشو أيا حبناها وحكسو بحي مركا الطاعة وحليلا طاعة دا دبيرانيسا صلاة دا دبيرانيسا قرآن كآخر كتاب دبيرانايا عدالة دا دبيرانيسا سمفلك دا دبيرانايا محبة دا دبيرانيسا كلاورهين دا دبيرانيسا لأن حبنتي هو السعيا إصلاح دي مركا حبنتي ما دام إصلاح دي الرئيس قاهيد حبنه كالودن مركا ويتوصيا لذلك عالم كمان هرو مربا لغو شيغيا هرو مركا وحا هرو مري وبرهي ويان دوبديه iyo khashabkii qoriiba horo maray laakiin binaadku ma horo marin bal binaadku waxa horo maray waa zamankii nabigeena kaleey salaatu wasalaam khayrun naas qarni wa fi riwaayatin khayrul quruni qarni baan rasuulku yiri dadka qarniga maanta aan joogo ayaa dadka ugu khayr badan buu rasuulku yiri wa fi riwaayatin nabigu wuxuu yiri khayrul quruni qarniyada qarnigayga baa ugu khayr badan buu rasuulku yiri qarniga muxuu ku khayr batay عالمك وحن ما أنت عن هاي السنة تكنولوجيا زمن كان مولين برهن هلا يمولين برتن دولة يسمولين برتن شدم يسمولين برتن هولا كين يسمولين برتن وحدة يسمولين برهن عالم كقارات ساعة يردوا لين الزمن كان مجرين لكن مع الزمن كاي الله لقوه رومري زمن كوحى لقوه رومري وحويان دتك وحي قرتين حق إلهي باي قرتين حق أضمها إلهي نوي قرتين عالم كودن waxa loo nisbaynayaa maadaama jamaacadii nabi maxamed uu kawnay ay ku nooleed adduunyada waxa la yiri qarnigaas ugu khayr badan waxa la oranayaa toga uu socda toguma socdee biyihiiba daadkiiba soo rimado daad ka socday ayaa togodan loo nisbaynayaa qarniga daatadiisu khayr ma lahayne bal jamaacada zamanka joogtay baa khayr badnayd qarnigii oo dhan iyaga marka loo nisbaynayaa Allah ina fahamsi توقع سعودة الأردن توقي ما سعودة توقع سعودة سعودة روبا داي داد صور مدي بيها السعودة توقي ودن الله نسبين يا لذلك النبي يقول حول خير القرون قرني هذا قرني كان جوجا أبو خير بدن قرني ما هدا تدي صوح خير بدنه بل وحى خير بدن دتك الزمن كان جوجا بقى عيان نقضي دتك أبو خير بدن نقضي إمام الأنبياء بعد جوجي أبو بكر الصديق بعد جوجي عمر بعد جوجي عثمان بعد جوجي dadkaasuu nabigu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam qabla alislaam siday haayeen bacda alislaamna siday noqdeen kayfa kaanat alcarab qabla alislaam halka maanta innaku aan marayno way ka darnayn iyakuna xaaladday dadkeenna ka taagan dalkeenna xaalad ka daran bay ku jireen innagu waaban eedaamayna oona shahaadanaynaa xaalad adag bay ku jireen dadkii buu nabigu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam raggii waxay noqdeen abu bakar radiyallahu anhu mansabkee buu helay khayru nnaasi bacda alambiyaa nebiyada marka xagga loo saaro kow ninka ummadda khalqiga ilaahay abuur ugu khayr badan abu bakar buu noqday cumar mansabkee buu gaadhay low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar baa nebigu yidhi haddii ani nebi iga dambayn lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi cusmaan radiyallahu canhu markuu nebigu ceelka uu lugihiisa ku raariciyey ee maaragtaane jilibkiisu maradu ka yar bannaanayd abubakar baa fadhiistay sidii buu nebigu ahaa cumar baa soo fadhiistay sidiisii buu rasuulku ahaa cusmaan baa yimiday isla markiibu nebigu maradii buu sii daystay caaisha radiyallahu canha baa ku tidhi yaa rasuulallah aabbahay abubakar baa yimiday kamaad xishoon cumar baa yimiday kamaad xishoone cusmaan maxaad uga xishootay bay ku tidhi markaasuu nebigu yidhi maxaanan uga xishoonayn caaishaay nin ay malaa'igtuba ay ka xishoonayso waa cusmaan maalintii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maaragtaanay muhaajiriinta iyo ansaarta uu walaaleeyey cali keligii buu nebigu soo reebay markaasuu cali murugooduu yidhi yaa rasuulallah aniga ma cid bahmaad ila walaalaysay ma keligay baad aniga igu dhaaftay
markaasuu nebigu yidhi yaa cali adduunkan iyo aakhiraba adiga anaadii walaaltahe aamus buu rasuulku ku yidhi maalintii tabuuka uu nebigu baxayeyna cali waxa uu kaga tegey madiina khaliifkiisii buu ka dhigtay